السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علمي بارستنا aan sameynay waxay ku saabsaneed sidii badqabka bukaanada qaliimada maraya loo hagaajin lahaa iyadoo oo la isticmaalayo in bal lagu sameeyo heerka ay gaarsiisan tahay isticmaalka WHO Surgical Safety Checklist oo ah checklist ama form ee hay'adda WHO ay diyaarisay kaasoo adduunka oo dhan laga isticmaalo aadna u fudud isticmaalkiisa. Cilmi baaristeena qaybteeda hore waxaan ku sameynay bukaano ka badan 400 oo bukaan ayaan diiwaan gelinay oo qaliimo loo sameeyay in ka badan 14 isbitaal oo magaalada Muqdisho ku taala. Waxaan ogaanay in isticmaalka checklistiga uu ka hooseeyay 40% uu ka hooseeyay taasi oo halis badan gelin karta bukaanada qaliimada maraya. Waxaan 14 isbitaal u sameynay tababar anagoo ugu dhex sameynay jaamacadda Simad. Markii uu tababarku u dhamaaday waxaan haddana isbitaalada dib ugu celinay in la isticmaalo formka Surgical Safety Checklist oo WHO sameysay 2009. Waxaan gaarsiinay in isbitaaladu isticmaalaan ilaa iyo 98%. taasi oo kor u qaaday isticmaalka checklistiga ee WHO ay sameysay. Waxaan rajaynaynaa inay taasi ka dhalato in badqabka bukaanadu aad u wanaagsanaado. waxaa dhici karta haddaanan bukaanka la isticmaalin WHO Safety Checklist in bukaan aanan loo baahnayn in qaliin lagu sameeyo loo sameeyo meel aan loo baahnayn in qaliin looga sameeyo waxaa laga yaabaa in looga soo dhex tagi karo alaabaha qaliinka loo isticmaalaha sida faashada ama biraha looga soo dhex tagi karo. Taasi waxay halis badan geli kartaa bukaanada Soomaaliyeed oo qaliin ku mara isbitaalada wadanka kuwaasi oo boqolaal ka badan. Adduunyada waxaa la odorosayaa in ka badan 400 milyan oo qof ay sanadkii qaliimo maraan. Haddii WHO Safety Checklist la isticmaalo waxay kor u qaadi kartaa in bukaanada badqabkooda uu wanaagsanaado.